tigid baa wuxuu noo goonaa maalinta sabtida ah waxaan rabnay inaan baxno maalinta sabtida ah bays ahaana India bayskiigu yahay xaggaas sii soconay marka shilkuna meesha wuxuu noogu qabsaday anagoo transit ahayn marka caruurta video wixii gabadha yarta laga duubay oo dambe oo dhahayso suuli baan galay waxa la joogtay gabar abaayada oo iyadana Turkiga ka timid jaamacad Turkiga ka dhigato vacation u timid baa ciyaalka la joogtay iyadoo laftirkeedu markii ugu horeysay xamar yimaadaan bay ahayd aniga ma gabdhaha baayay caruurtii first time xamar yimaadaan bay noo ahayd iyada ciyaalka ka haysay suuliga geysay halkaana ku haysayo daqiiqadahaas xakameysay runtii dareen waalidnimo oo aad u sareeya bay ila dareemeen waxay ka soo qaadeen ilmahoodii oo kale feelingkii waalidnimada ila dareemeen saacadaad u adag oo aad u xanuun badan bayna nahay qof kastana uu dareemi karaa lagu dhaho ilmahaagii baa gudaha ku jira xabad iyo qarac ka socdo dareenan soo koobi karo shucuuran cabir kara hadeer midna maahan alxamdulillah taasi waxa ka dambeysay iyagoo nool soconayo caafimaad qaba markay iga hor yimaadeen isna dareen kale iyaduna farxad loo maalintii adduunka daqiiqadii adduunka igu farxadda badnaa iyo daqiiqadii adduunka igu naxdinta badnaa bay hal mar wada kulmay aad iyo aad baan u mahad celinayaa asxaabtii ila gurmatay oo garab taagnayd oo soo hadaan dhawaan tirinayaan soo koobi karinin oo rasaasta iyo holac ay wala jireen mahad gaaraan iyagana u celinayaa caruurtayda waxaan ka baxay abaara 4 iyo bar galabnimo baan ka tagay haddii aan baara 4 iyo bar galabnimo ka tagay marka soo noqodkan soo noqday baan la xiriiray meel baan salaadis waxaan ugu leexday maghrib inaan tukado marka waan la xiriiray inay caafimaad qabaan bay ii sheegeen waxaan ku dhawaayay waa idin soo socda anigana salaadii maghrib markaan sidaa salaadii u salaamo naqsadayna oo aan saa u suuq dhankooda u roqaansadayna u dhaqaaqana waxay iigu wargeliyeen in hoteelka qarax ka dhacay hubsimo badan aan sameeyeen waxa la sheegay in hoteelkii uu yahay marka xaaladaas iyo dareenka marka aan dareemay qof kasta oo damiir leh uu dareemi kara ilmu yiri ilmaha halkaas ku jira awoodna u lahayn inuu galo markaa isagu annagu qurba kamaana nimaan reer Soomaaliya nahay especially bayskii uu garow ahaa caruurtu waxay ka yimaadeen garowe aniguna waxaan ka imid Nairobi tigid baa wuxuu noo goonaa maalinta sabtida ah waxaan rabnay inaan baxno maalinta sabtida ah bays ahaana India bayskiigu yahay xaggaas sii soconay marka shilkuna meesha wuxuu noogu qabsaday anagoo transit ahayn marka caruurta video wixii gabadha yarta laga duubay oo dambe oo dhahayso suuli baan galay waxa la joogtay gabar abaayada oo iyadana Turkiga ka timid jaamacad Turkiga ka dhigato vacation u timid baa ciyaalka la joogtay iyadoo laftirkeedu markii ugu horeysay xamar yimaadaan bay ahayd aniga ma gabdhaha baayay caruurtii first time xamar yimaadaan bay noo ahayd iyada ciyaalka ka haysay suuliga geysay halkaana ku haysayo daqiiqadahaas xakameysay marka sidaasay ku dhacday marka iyagu sidaas way xasuusanayaan waa dad aqli leh waxa ugu yar sanadiye barjir 3 sano jir iyo 4 sano jir ay baadooda kala tahay afar saac oo xiriir bay ahayd laakiin haddaan dib u xasuusto 4 minute bay la dhamayd markaan helay iyagoo caafimaad qaba 4 minute bay la dhamayd caruurtayda albaabdan baa laga saaray ambalaas baa qaaday waxa la geeyay hotel Shamo gaari baa u tagay iiga soo qaaday waxa la igu keenay Grand Hotel hortiis